Al-Huda Herbal Medicine waa xarun caafimaad oo dabiici ah waxayna ka howlgashaa xarumana ku leedahay wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Kenya. Cilmi baaris ay xaruntani samaysay ayay ku soo bandhigtay 2017 sidoo looga faa'iideystay xarumaha ku kala yaala magaalooyinka Nairobi, Muqdisho, Hargeysa, Burco, Boorama iyo Wajaale. waxaa jira dad iyagu ku xiran xaruntan oo daawooyin ka qaata qabana xanuuno ay ka mid yihiin sida dhiigkarka, gaaska, sokorta, babaasiirta, umusumiyaanka, samboorka iyo waliba kansarka. بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله تعالى waxaan u soo bandhigi doonaa arintan caafimaadka waxaan ogaanay in dad badan ay aaminsan yihiin in cudurrada qaarkood aan laga buskoon taali ajligeed waxaan ugu kaliftay annagoon jeclayn inaan soo bandhigno dadkii bini aadanka ahaa ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu caafiyay haddana dantaan ugu khasabtay si ay u ogaadaan kuwa aaminsan in cudurrada sida dhiigkarka, sonkorta, kansarka, cudurrada aan laga buskoon ay sheegaan dhakhaatiirtu dadkii ka buskooday ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka caafiyay baan soo bandhigaynaa sababtuna waxay tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cudur ma soo dejiyo dawadiisana uu soo dejiyaa النبي وحده المامي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى عذره وسود شيء دودي سنة وسود شيء تاسع مركا كلفتين عن حقيقتنا إن عذره أي دوين لين مركا وجدنا نصب بندقة إن دتك واحد هاي إن دتك أجاده إن إلهي سبحانه وتعالى ذكرك إلهي كعافي سنكرت إلهي كعافي كنسرك إلهي كعافي عذره بدن أو دتك ما أنت إلا نوليهن الله سبحانه وتعالى وسود شيء دو إلهي نوك عافنا يا دومديس. halkan waxaa ka hadlayaa Bakar Umar xanuunka la yiraahdo dhiigkarka ayaan ka cabanayay in doora iyo qanjirka la yiraahdo prostate-ka dhakhaatiir badan baan la maray dhakhaatiirta badan waxba dawo bay siinayaan chemical lahood ay iga jabinayso waxoogaa muxuu ahaayay dawo la nool baan ahaa marka waxaan u imid ninkan sheekha markii aan u imid dawo ii qoray dhiigkarkii 9 casho markii aan isticmaalay dawadii ayuu halkiisii ku noqday caadiga ahayd muxuu ahayd dabadeedna dawadii waan joojiyay aad iyo aad baan ugu ladnaaday oo ugu fiicnahay hadda ma qaato dawo ilaa muddo dhowr bilooda ma qaadan dawo dhiigkar muxuu ahaayay waxaan una isku arag subax walbana waa isjaagareeyaa waa normalkiisiiba uu noqday muxuu ahaayay waxa aan qaataa imika dawadii prostate-ka iyadana aad baa xanuunka iga yaryahay hal mar baan qaatay mar koorsadii labaadna waan qaadanaya hadii Ilaahay danka ka dhigo aad baan ugu fiicnahay oo aan uga reestay xanuunkii in doorana waan la maray inta aan marayna muxuu ahaayay dawo kaarka maalin iyo laba ka jabisay oo dabeedna oo halkiisii ku noqdo baan muxuu ahaayay isticmaalayay oo kuwan dhakhtarada caadiga ah dawooyinka herbal-ka aad bay u fiican yihiin Ilaahay ninka gacantiisa wuxuu iga siiyay dawo alxamdulilaahi rabbil caalamiin Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa magacayga waxa weeye Khasiil Xaaji Cabdullaahi Jirde muddo imaka xoogaa ah ayaa waxaan qabay xanuunkaas oo inta badan uu iga hayay luqunta iyo dhammaan jointiska ama meelaha laabatooyinka oo diid maxana igu adkay fororsiga oo fursan kareyn waxaan ku tukanayay kursi dabeeto waan tagay dhakhtar badan runtii laakiin waxa intifaac fara badan kala ma kulmin talooyinka liiga siiyay cusbitaalada intooda badan waxay ahaayeen dibadooda la baxda mooyaane way adagtay halkan dawooyinkooda alxamdulillah waxaan aakhirka way adagtay runtii maaha wadan gudaheena aad marka dibadda u tagayso lacag fara badan bay koskareynaysaa waxaana weeye inta badan khataro badan oo lafteedana oo jira badan oo iga haysay dabeeto adigu waa iskala wareegay aakhirka waxaan u imi muxuu ahaa dhakhtarkan Al-Huda
ayaan u imi waa xanuunkii waan sheegay waan duubnaa luqunta dhan way duubneedo kabitaan bay ahayd oo hareeraha ma eegi kareen markaa dhabarkeyguna wax sidii wax takhalin buu ahaa jointiskan laga laabto ee masalan ruugaga oo kale iyo xubnaha gacmaha iyo kuwaasina way adkaayeen si usoo laalaamayaan runtii ma garan meesha waxa kooskareenaya dabeeta sheekha uu imi wuxuu siiyey dawooyin buu siiyey isku soo eeg dawooyinka waa isku soo eegay 2 bilood waxa weeye intii aan qaadanayay lafteeda gudaheedii ayaa waxaan dareemay isbedel inuu kusoo socdo oo macnaha jileecii markii hore adkaaday inuu soo jilacayo waxaan halkii aan kursiga ka tukanayay markii adduuda dhameeyay waan foorsigay u dhamoo dhamaaday waan foorsaday waa sujuuday waa rukuucay waa kacay waa fariistay intaas waxay wahay wax adag maalintan uu iibinaa waxa weeye malaw yaraan laba koor baan sitay iyo laba fanaanadood iyo hal qoorta ku xidhan oo aanan la jeestaysan shiyadeedu ay adagtay waa iska furay akhriga waa iska furay waa caadi baan doo noqdo waxa weeye dhaxantii iyo wixii culayskii hayeen waa iga baay waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa runtii dawadaal ilaahay la kulmiyey markaa ee siiyey igu caawiyey mahad ilaahay baa leh anigu waxaan ahay qof weyn baan ahay aan ahaade in badan baan xanuunsanayay haddaan xanuunsanayna intaa dawaan qaadanayay dawooyinkan intaa qaadanayay waxa la waxa oo istafiido oo aan sidii wad kugu kordhay ma jiro dabadeedna wadaadkaas yimi sheekhaas yimi wallahi tilmaamay waxa la halkan sheekh baa joogo garaash baa furan waa ilaahay bay soo dhaqaajiyay talaabada ilaahay baa iska wata waanu imi hadda waxa igu gaadhay inaan 2 sanadood aan ka qaato dawo dhiikar baan lahaa macaan baan lahaa fiix baan lahaa alxamdulillah maxay kale waxaan lahaa gaasaran lahaa alxamdulillah rabbil caalamiin imika aad iyo aad baan uga fiicnahay xanuunadii oo dhan aad baan uga wanaagsanahay marka insha Allah bismillaahi kariin ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyagana ilaahay isagana inuu ilaahay uu maxay yahay aakhiriya adduunba uu ilaahay uu khayr siiyo oo ilaahay caafimaad siiyo aakhirina ku wanaajiyo iftiinkana ku wanaajiyo baan ilaahay ka baryaya ugu horeyn aniga oo xanuunka la igu sheegay macaanka la igu sheegay marka xanuunkaas markii la igu xaqiijiyay insha Allah diidna markaa farmasiida igu dhaadeen kaniin baad qaadanaysaa oo macnaha noloshaada ma diidaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu ii qadaray inaan xarunta ilaahay soo waafajiyo marka xarunta markii ilaahay soo waafajiyay alxamdulillah doctorkan uu miday xarunta macnaha u qaabilsan diidna insha Allah doctorkii ayaan uu miday insha Allah waxaan ku dhimaa doctor xanuunkaasan qabaa diid insha Allah ilaahay wuxuu waafajiyay dawo fiican bii qoray marka hore taasoo waxaan ilaa iyo 4 tablets baa ay u sheegeen inaan qabo macnaha ay soo xaqiijiyeen inaan macaankan qabo yaa la soo xaqiijiyay diid marka doctorkii markii uu ma qabtaa haaba ku dhawaan qabaa markii dambe dawadii bii qoray soo qaaday wuu dawadaas waan soo qaatay ilaa iyo intii ilaahay qadaray waan qaatay alxamdulillah bismillah horta awalan bismillah baan ku dawadii ku bilaabay yaano ilaahay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xiyaaminsan ilaahayna inuu wax ka xiyaaminsan dawadii ilaahay subhanahu wa ta'ala markaan dhameeyay dhibaatadii haysatay macaankii kor u kacaysay ilaahay wiiga dulqaaday kadib dhakhtarkii ayaan imiday mar labaad waxaan ku leeyahay waan fiicanahay doctor wuxuu weydiiyay ma isbaadho macnaha ma soo hubaysay uu weydiiyay waxaan ku yiri waan soo hubinayaa baan ku yiri haye biigu soo xaqiiji marka la xaqiijiyo kadibna igu soo noqdo yiri alxamdulillah waan soo xaqiijiyay warqadaas baan ku soo xaqiijiyay oo hadana insha Allah dhakhtarkii ma dib doon mar daba aan ku laabtay mar labaad aan ku laabtay waxay ii sheegeen alxamdulillah inay tahay nil ama inay waxba lahayn ba nil macnaha waxba ma laha waxba ma jiraan ba aan bay tahay 80 kaasi waa intii qofka normalka ah caafimaad qabay weeyaan bay bilaadeen alxamdulillah waan ilaahay ayaan awal u shukriye diina insha Allah xaruntan hayaan medicine ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay noo keenay aniyaan ugu mahadnaqay macnaha xarun aan u arkayna tahay farish ilaahay dadka u soo saaray magacaygu waa Hinda waxaan joogaa magaalada Boorama waxa laga helay xanuunka sonkorta 2015 bishii labaad
kabacdi boorama laga helay waan ka tagay waxaan tagay hargeysana sidoo oo kale dawada ayaa la qoray dawada markaan bilaabay ayaan waxaan tagay herer hadaan tagay aad sidoo oo kale waxay dhaheen dawada iska wad intaad nooshahay dawadii baan soo qaatay waan imi muddo sanad ayaan dawadii cunayay 2016 bishii labaad ayaan sheekhan la kulmay daawo ayuu ii qoray dawadiisii markaan bil qaatay ayaan dib ugu laabtay hadana bil damo ii soo qoray 6 bilood biir waad wadaysaa 6 bilood markaan 4 bilood adigu markaan waday dawadii xanuunkii waa laga waayay negative baa la yiri kabacdi dhaqaatiir kala soo mar buu yiri soo baar ilaa 3 dhakhtar baan maray dib baan ugu laabtay sheekhay wuxuu yiri adubna sana waxa la yiri negative kabacdi dawadii waa laga joojiyay hadda muddo 7 bilood wax daawo ma qaadan alxamdulillah ilaahay iga kaxay xanuunkii waa laga waayay waana fiicnahay markii hore dawada markaan bishii hore qaatay oo sonkortayda aan qiyaaso oo sonkorta waxba u yiri digweede ayaan sheekh ku noqdo waxaan ku sheekh sonkortiina sidii bay u taagan tahay dawadina waan qaatay marka sheekhu igu dhiirigeliyay wixii dawada wad ha ka shakiin ilaahayna tala saaro waan waday adoo 4 bilood markaan waday dawadii xanuunkii waa laga waayay marka alxamdulillah sheekhana waan u duceynaa ilaahay khayr ha siiyo isaga igu dhiirigeliyay inaan sii wado haddana xanuunkii waa laga waayay negative baan ka ahay sheekhana waan u duceynaa ilaahay khayr ha siiyo dadka waxa laga dhaadhiciyay dawadan kiimikada qof la noolaada xanuunkan uusan tagi karin dadka laga dhaadhiciyay laakiin wixii ilaahay keenay xanuunka ilaahay soo dejiyay daawo soo dejiyay ilaahayna wuu ka daawo wuxuu ilaahay ka daaweynaya waa ka tagayaan ilaahayna wuu naga daaweeyay alxamdulillah rabbil caalamiin aniga magacay waxa la yiraahdaa Amina Sahra runtii waxa weeye waxaan oo imid yani halkan imid ayada oo macaan la igu sheegay macaanka waliba kaca waxaan qaatay daawo oo kuura ah haddaan daawada qaatay oo dhamaystay intii aan daawada cunay oo ku dhex jiray runtii waxaan dareemay caafimaad weyn oo ah yani xanuunka aan dareemayo oo macaanka ahaa markii aan daawadii kala barmarayo maalmaha kamid waxaan iska qaaday test ayaan iska qaaday sugarka ah runtii anoo waxa weeye xaqiiqda marka ay sheego waxa la yiri sonkortaada waxay maraysaa 118 yani ma qabtid sonkor yaa sonkor kugu sheegay waxaan iri sonkor waa qabay laakiin waxaan qaataa daawo cilaaj ah waxa laga yaabaa daawada cilaajka ahayd inay wax i tartay oo yani ay iga caawisay baa laga yaabaa marka wuxuu yiri yani ninka dhakhtarka oo baaraya waxa ay sheeg dhici karta inaad sonkor qabin markaaga hore oo yani waxaan ku iri waxaan tusi karaa baa waraaqahayga yani dhiigaga layga qaaday oo layga shubay waliba layga baaray runtii waan soo tilmaamay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan halkaas arko 18 sano aniga bay haysay adiga laakiin hadda sonkortaada waa stable laguma moodo wax sonkor qaba waan laabtay maalintii dambe daawada intii iga dhimanayd haddana 3 meelood yani 2 meelood markaan cunay oo meel ii harsan tahay maalmaha kamid waxaan isir test iska qaad haddana waa iska qaaday 18kii bay sonkorteeda inaysan 118 haddana sidii si lamid abu iri farmashiga kalena wuxuu yiri waxa laga yaabaa inaysan sonkor ku haynin oo yani aad la khalday dhiigaaga marka dib ma isku baartay waxaan ku iri sonkor waa la igu sheegay waan ikici jirtay waanan yani qabay baan ku iri laakiin hadda waa ka fiicnahay hadda waxa iga haray wax yar oo yani qaliil daawadii runteena xataa tijaabo baan sameeyay macaan badan baan cunay si marka macaanka awal cuno waxaan dareemi jiray xanuun jirko i gubta anigoo yani gubanaya wax badan baan dareemi jiray waxaan cunay xalwad biskud haddana waa cunaa magacaygu waa Sahra Aadan kolkii dawada sheekh la ii doonay anigu sariir baan sawaalay kala garasho ma lahayn waxba ma ogay wax la ii keenay laakiin dawadii markii la siiyay ayaan isbedel weyn sameeyay wax ii soo kordheen imikana alxamdulillah rabbil caalamiin dawadii markaan qaatay waa aniga xafiiskii imid ee cagahaygii ku socda kansalkiina waan ka dawoobay alxamdulillah rabbil caalamiin alxamdulillah rabbil caalamiin ruuxan xanuunsaday kansal bay ku dhacay ilaa rabadaan ya xanuunkaas u taabtay ka 6 bilood ama 7 bilood ma kala hubo waa inta u dhaxaysa waxana ma cunin oo biyo iyo baadida iga dima dhowta ma marin ka bacdina suulile ma gelin ma daacin ma neefsan
geestama waan ka xidhnaa waxaan ka iga siin jiray xididada intaas markay dhacday yaa bisha soconaysa tii ka horreysay 25 baan dhakhtarka Farxaan isugu nimid sheekha ah xanuunkayga baan u sheegay wuu iduweyey diinta cuskaday sunnihii nabigana wax ku duwey jiray waa igu duweeyey waxaan idiin sheegaya inaan dawoobay oo raadkii caafimaad ku dhaqaaqay oo aan caani cabiyo oo suuligi geliyo oo seexanayo oo aan intaa waan idiin sheegay raashinkii biyo caani waan cabiyaa bris maanta waan cunay ummadii waa taasoo waan cunayaa waa maqul qalalanta tageela laga sheego alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan idiin sheegayaa in aan anigu raadkii caafimaadka ilaahay sabo uga soo dhigay Farxaan oo aan raadkaa hayo dacaal Cismaan waxaan markaa oo imid muddo 2 sanadood ka hor meelahaas anigu markaa xanuunsanaya oo xanuun fara badan dareemay qaar ka dambe badan ee macdanta intaas marka sheekh markaa wuxuu ku sheegay xanuunka la yiraahdo igu yiri waxa la yiraahdo musmiyaan marka dawooyin bisiiyay waan qaatay waan ku soo noqday معين حاجة كنا خلخل بيجري شري مركا وخلخلنا حنون في ربنا مدري مشري مركا وانو يمد دوين كبير قراي مدة مركا حاجة قاطع وانكسر نقضي دوين كلا ينقاطي مركا حنترى مين سبدل فرب بدنا ونكسل لو شروا مركا كسر نقضي مركا حنترى مين سبدل كودر مين عافمت كي كسر رينيو سيدي ما مركا بدولة السعودية لا يسمح تعالى مركا الحمد لله الماء يان كوهلاي الحمد لله مركا ساسان ugu caafimaday marka ma sha Allah taadi aad ban ugu mahad celinaya xarunta Al-Huda xanuunin badan hayay ayaan daawo ka qaatay waa ku ladnaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin muddo badan ayuu yahay ma sha Allah dawadii siiyay wadaadku aad iyo aad ban ugu caafimaaday anu dawadii qaadanayna waan caloosheeda ilaahay wuu siiyay alxamdulillah horta ilaahay baa u badkahaya haddana alxamdulillah kulley dawada in bay ilaahay ugu caafimaayay dhinaca muddo badan buu xanuunay hadda maba qiyaasi karo dhowr iyo 10 sano in ka badan buu xanuunay ma sha Allah waan ku ladnaaday alxamdulillah dhakhtarro badan waan la xiriiray wax daawo ana dawadoodii ma anficin alxamdulillah dawadii uu siiyay sheekha khayr Allah siiyay ayaa ilaahay ugu caafimaadiyay dawo dambana waan ka qaatay hadda isaga mooyee dhakhtar kaleba lama xiriiro marka wax ilaahay loogu mahadiyo ilaahay baana noogu keenan malaynaya hargeysa ilaahay baa noo soo diray wax ilaahay soo diraan ku qiyaasi karaa marka alxamdulillah aad iyo aad bay mahadsantiin qolada ii timi iyo sheekhu aad iyo aad baan uga mahad celinaya ma sha Allah khayr Allah ku siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hinda Cabdullaahi Cabdi markii hore waan xanuunsanayay madaxay xanuunayay jirkoo dhan bay xanuunayay xarunta Al-Huda aan la xiriiray khayr Allah siiyo sheekh Farxaan ayaa noo tagay waxa la iga helay xanuunka la yiraahdo musiyaamniyada alxamdulillah dawadii aad baan ugu fiicanahay sheekhana khayr Allah siiyo dambigiisa Allah dhaaf waan u ducaynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim ana mahadnaqayo ilaahay marka xigta mahadnaqayo Al-Huda herbal waxaan tagay muddo 10 sano ayaan bukay 10 sano waxay hay xanuun igaga dhacay inta macdanta ee dambe dhowr jeer baan tagay Itoobiya xanuunkii sheegtay waa la waayay kadib dhakhtarkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa herar wuxuu igu yiri wax ilmo oo dhali kartaa ma jirto ilaa intaad haysato mooyaane waxaan tagay dhakhtarkan Al-Huda 2 jeer markuu dawo i siiyay ilaahay waxbuu i siiyay الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وحوي دودن dhirta ay cilaashka ayuu rabbigu caafiyay anigoo mamaasiir leh dabada uma fariisan karin 4 bilood ilaa 5 bilood caloosheedu ma fariisanayn marka waxa way dawadii markaan isticmaalay ilaahay igu caafiyay dhirtii la ii qoro dhan madaxo i kariyo dhididayay hurdaan seexday ilaahay igu caafiyay isaga mahad leh
ilaahay sheekhana cisiya sharafta lana ilaahay caafimaad ha siiyo mahad baan ilaahay ku naqaynaa ilaaha noo keenay xarunta dalka yaga ilaahay baan u mahadnaqayaa anigoo ku caafimaaday ayaan ilaahay ugu mahadnaqayaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu Saaro Usmaan Ali bergoora waxay ahaan jiray babaasiir bay ahaan jirto imise dhakhaatiir baan la xiriiray ilaahay dawo igama siinin waan ku wareeray habeenii maalin baan jiif kari waayay waan taagnaan kari waayay doctorkan sheekhana la soo xiriiray ilaahay caafimaadka uu iga siiyay الله الحمد لله رب العالمين شيخا دودي سيلاي دو يقول دري سجنا خير الله سيو جزاكم الله خير أما في الحقيقة لو بدي كل لحد بيحد مكله يقول شيء دكتور يقول شيء أنا هو رئيس يقول ما نقول لكن دكتور باش يبان يقول سميه يقول شيء دكتور كلنا وماتك كان دوين في قريب ما نستعمل وما نقاضم هو كتجي بهرجيس يعني كي يقول شيء تعالوا ده مركنا الحين عافماد بعض فرفضهم أي ضريبانكم عاد من حق بواسطة وكفي عن حنونك وحي هي إلا 14 سنة قياست 20 years more than وحالنو هيستي حنونك إنه حنون ير أو حقا صنببضة أما وضنها ميلهاسة حلون كي دكتورك بارتانك وكوها لنا وحي نقطي حنون قدشر كان برستيت كالليل هذا الحمد لله رب العالمين حنون كان يسكوك تبي يقول ماكو بارتانك السمية ما يبغى نقول وحول الشيخ وحق هايسا بحق شركة صابوكا شركة انت سكرة أدو كوفي عني هاي وحان الله هاي فرحان قلبي الله كبركيو إلهي إذا كيسا وادنا انفعضي ضدك يدلك بواد انفعضي وحوينو بدواتك بدا شيء إن شاء الله هو الكبر تاجنا لنا وحيد دبي علمك وبهنا وحوي دكتورك يجي باطهاي وحنا نكون جينيا إن إلهي نوفد دايو وأنا جنا عافيبات نجا خاصيو أديكنا إلهي وحونا استنوا أقواليو إيمان بل إلهي كوجسدو إن شاء الله بإذن الله الكريم. مقعي وحلا إلى إبراهيم عرتن محمود بالله هذا إن حنونك وحن حنوني سي حيد كم رصاص كلا هذا حنوني مدة 10 سنة أدو مالها لو بحنوني إن دخاتير هرا والله صح حجيلي دخاتير تورا مدة بدل ما لسه حجيلي إن واحد بدن كمي كل أو عارف ماذا بدن كمي هيرين دكتور كوحن لصح حجيلي مدة صدح بلاد مالها سنة لصح حجيلي دوين سيي الحمد لله آدبن حنونك والله نادي آدبن ونكسنا هي إن دكتور كلا خير سيو وحاول كده وين قريب كان محل هذا إن محل هذا أشعابته محل درت خير بل كده وين يا الحمد لله لا خير سيو عاد بيعاد بنقول هذا يقولون الله ضنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الرحمن حرير جامع أنا أقول مركان أنا مهود هيربل وحن كعبنا يي قريبت معناه إن ترنكا iyo neerfayaasha alxamdulillaah rabbil caalamiin dawo fiican buu sheekhu qoray dawadii jeer markan laba jeer qaatay si fiican baan ugu caafimaaday alxamdulillaah dawadii waxay soo dhaxmariyay dawadii ilaahay soo dhaxmariyay anigoo dhakhaatiir fara badan la maray oo Hargeysa iyo Bagastaan intaba ah oo marnaba aan macnaa kulladii waayay alxamdulillaah rabbil caalamiin waan kullanay waan ku bugsay imkana alxamdulillaah rabbil caalamiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا أو كوكيلة آمنة على الديرية ومتدر أو لبعتن كله حنون كعبنا يصير شركة علاش جودها أيان أو وحلا وحي أيدا دم سامي تعلاش كقد عن دبدنا أي شوف ما يصو دقاتير فربنا والله مري
waa in badan baan la soconay shiiqa bishii 8aad dhowr iyo 10keedii ayaan la kulannay ilaahayna siiyay marka dawadii uu siiyay aad iyo aad bay ugu wanaagsanaatay calooshii ortayadu way isu taagtay jirkii kiniinkii uu siiyay jirkeedii oo siday u shumaysay yaraaday dabac buu sameeyay in jirkii markii dambe cuntadii u joogsatay in jirkii yar falxo oo dabco marka alxamdulillaah rabbil caalamiin marka waxay tiri shiiqa inta way ilaashanaysay duca aad iyo aad u culus oo u fara badan ayay u soo gudbisay waxay tiri meel yar durugsan baan joogaa hal la iiga gudbiyo shiiqa alxamdulillaah rabbil caalamiin ducada culus ayaaba caafimaadka ay heshay iga gudbiyadaas aad iyo aad aniga de aan u hayayo alsaha too ducada shiiqa goormo imanaya aad gudbinaysa de waa fariin aad u culus marka alxamdulillaah rabbil caalamiin anaguna waanu ka nasanay intii dad shaqaynaya oo wax maydhaya oo yaanu noqon dadna anagina waa nasanay iyadina way nasato alxamdulillaah rabbil caalamiin bismillaah aniga farwaadan baa la yiraahdaa xanuunkaasna 24 sano yahay waxaanu iga hayay jirka sare ee dusha ee dubka intii wadaadkaas ilaahay keenay in kulmiyay halka uu igu yimid gurigaana ilaahay caafimaad buu siiyay ilaahay iyo waalidkiisii iyo waalidkoodiba ilaahay caafimaad siiyay caafimaad baan ka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin xanuunkaygu wuxuu ahaa jooniskii caddaa Jabuuti waan tagay dhakhtaradu waxba way iga tiri waayeen Itoobiya waan maray waxba way iga tiri waayeen aakhirtaankii buuramaan imiday dhaqaatiirteedii waxba way tiri waayeen laakiin ugu dambeyntii aakhir ilaahay wuxuu igu soo dhiibay ilaahay mahad ka gaadhay Al-Huda Medicine Herbal kaaban aakhirkii dawadiisii aan ku caafimaaday ilaahayna waxaan ugu barayaa ilaahay sidoo igu caafiyo ilaahayna shagan ummadda Nabi Maxamed oo dhan ilaahayna ugu caafiyo waa kaas Al-Huda Medicine Herbal ayaan dawadeeda ilaahay ugu soo dhiibay alxamdulillah maantana aad iyo aad baan u fiican oo sidii malabkoo kala ah macaan iyo ka yar bay leedahay ku dhacaya halkan dadka wax kaga soo kacayaan waa labxada maanta ilaahayna hadii baan taaganahay waan ku caafimaaday ka bacdi markaas siyaasad ugu sheegaya dadka dadka reer Somaliland dhamaan cidii wax ka cabanaysa gaastariga dhowrkaasna uu yahay maantana waa ka wanaagsanahay kulaylkii waan cunaa waxba uma joojiyo sideedii hore aan caadiga ahaan ku soo noqday سير أحمد علي ولا المقعد اللي هذا دور سنان بكي حساسية يصنبور بي هي دخاتير بدن بنتجي إثيوبيا انتجي ميلول بوانتجي ولا الوان كوبكسن واي آخر كينا الهدى تكتي يا إيش شاكتي قلت الأختر كاسان تجي وأنا كوفي عنادي شيخ كاسان تجي وأنا كوفي عنادي مركب الشيخ تجي سدح دور ويمي بانو تجي سدح دور دوي قري وأنا كوفي عنادي دوي انتهي لبو هيا شيخي وأنا كوفي عنادي أنا aad baan ugu wanaagsanaa arti ilaahay ha ka xoray midagtiisana ilaahay ha u barakayo maanka iyo midagta ilaahay midna kama waqaanu midna ilaahay ka qoomin oo ka qaadi sidaa uu noogu yimi ee noogu dadaalay ilaahay ha ugu dadaalo ilaahay waxroon ha ugu dadaalo barakaha naga qaato baydkiisii hala tago ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala waan soo bandhignay runtii dadkii aan tilmaamaynay ilaahay baana addoommada caafiyey alhudaa ma caafin walaa cid kale muhiimadda aanu dadka u soo bandhignayna dadku ha fahmeen xaqiiqatan waxay tahay in qofka bini-aadanka jirada la nool uu ogaado in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigiisii iyo nabigu sala allahu calayhi wasalam wixii noo tilmaamay ay soconayaan laakiin wixii khiyaaliya kale ayna soconayn maxaa yeelay caalamku wuxuu isku raacay dhiikarku inuuna dawo lahayn sonkortu inuuna dawo lahayn iyadoo nabigeenu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam xabatu sawda inay cudurradoo dhan dawo u tahay cudur ha weynaado ha yaraado ilaa geerida iyo da-da mooye cudurradoo dhan daway u tahay qofku marka waa inuu hadduu muslim yahay aamino in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu addoonkiisa caafin karo daqiiqadana uu ku caafinayo laakiin in dawo lagugu wado weligaa oo lagu yidhaahdo dawadan uun qaado weligaana waad la noolaanaysaa iyadaaba cudura maxaa yeelay qofkii muslimka ahaa qalbi jab baa ku dhacaya markii sonkoro kusoo boodo
isla markiiba niyadda waxaa gelaysa weligaa kama fiicnaanaysid, weligaa kama caafimaadaysa. marka allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh, ilaahay baana ku mahadsan siduu addoommadiisa u caafiyey. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.